Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabteyda qaaliga kusoo dhawaada janaalka Fawziya Secret Recipes part 2 keegii decorationkiisa ayaa idiin soo gudbinaya haddii ilaahay idmo insha Allah sidoo noogu soo baxayna horena waa u aragteen haddana waa kana qofka hore usoo fursan please part 1 hore usoo fiirso sidaan keega usoo sameynay qaybta waxaan kusoo gudbi doonaa insha Allah sidaan maaragta u sharaxayno iyo alaab u baahanahay marka waa kana waxaan u baahanahay whipping cream waa creamkan caanaha ah asoo budo ahna suuqa waa laga helaa midka budada iyo midka caanaha waa isku mid laakiin kan caanaha ah dhadhan macaan waxaa soo qaadanaya bahalkan gacanta haddaad haysan xataa xurubka caadiga ah oo Soomaaliga waaga hore la isticmaali jiray waa soo qaadan kartaa laakiin kana ka fudud waxaan rajeynaa meel kasta waa laga helaa kan marka tartiibtaada u garaacaysaa marka hore level hoos ku bilow kadibna marka dambe u dheeray xawaaraha u dheeray oo waxa geysaa high tartiibtaada ku baashaal waxba maaragtay waxaa ka dhigin wax cusub qofku ku cusub yaa weli sameynin adigoo ku baashaalaya ku raaxaysanaya ku garaac asaa ku adkaan doona haddii ilaahay idmaha isdhihin muxuu la jilcan yahay maxaa ku dhacay midka budada ah qofka haystana waxaa instructionsku ku qoran yahay ama biyo ama caano qabo hal bakeeri ah lagu garaacaa insha Allah videoga labaad oo keegi dambe oo soo gudbi doono anoo mid budo ah isticmaalaya idin soo gudbi doona haddii ilaahay insha Allah haddii ilaahay idmo waxaana laga helaa whipping creamka supermarketyada ayaa laga helaa marka budo iyo caano midka heshid waa isticmaali kartaa cadaan uu leeyahay mid wuxuu leeyahay kalarka oo pinkiga ah oo waxa laga sameeyay strawberry iyo mid chocolate inta waa la helaa markaas adig kalarka jeceshaha soo qaadan kartaa xataa cadaankan ruuxiisa kalaradiisa bedeli kartaa strawberryga flavorkiisa ku dari kartaa rinjigiisana waa ku dari kartaa sidoo kale haddaad rabtid inuu kafee ku noqdana waxaa ku dari kartaa cocoa powder marka sokor budo ah soo qaatay oo hal bakeeri ah qofkan sokor badan rabin qasam aha waa iska dhaafi kartaa qofkii ilmo siisanayo keegana awal xoogay cocoa ku soo darnay iyo kafee qaraar uu leeyahay saasan sokorta bakeeriga ugu daray nus bakeeriga ku darsan kartaa waan iska dhaafi kartaa adi iyo dooqaada waaye sokorta budada ah guriga ku sameysan kartaa insha Allah waa idiin soo gudbi doonaa insha Allah qofkii yaqaanana waa yaqaana qofkan fahansanayna waa uga faa'iideey doonaa haddii ilaahay idmo guriga ku sameysanayo sokorta budada ah mid cad iyo mid guduudan mid daaratid waa ka sameysan kartaa haddii ilaahay insha Allah marka waa kana si fiican u soo garaacay levelkii aan ka rabo noo maraya haddii ilaahay idmo ina aad u adkeeyo marabo hadda aad u adkeyso waa dhowt sharaxaadu kugu dhidhibaya marka aan doorshahana farinjeerka aan geliyay 4 saac amal farinjeerka igu jiray asoo qaboow baan ka soo bixiyay markaan sharaxa kadibna farinjeerka qaybta caadiga qaybta barafka ma aha qaybta qaboojiyaha caadiga ah haddana ku xareynaa 2 saac 3 saac oo kale inuu ku jiro inta cunuga la gaarin ka hor marka tubooyinka lagu sharaxa keega ayaan soo qaatay eegana supermarketyada laga helaa 2 xabaan soo qaatay oo kareemka ku kala qaybsanaya kareemka qayb waxaa maartay ugu talagalay keega inaan ku sharaxo hadduu ugu yaraadana uga faa'iideysto laakiin inaan wax kale ku sameysto ugu talagalay ilmaha aan u sameeyay cupcake aan u sameeyay ugu sharaxi rabaa haddii wax iiga soo haraan uu badan yahay kareemka hal bac dhana isticmaala hal box dhana isticmaala 1 litir camal marka keega waa soo qaaday qaybta xoogaa kale oo xaraga noqotay waa iska fiiqfiiqoyaa si hadhowta maaragtay dhadhankeeda uu xumaanin ama sharaxaada iiga dhibinin marka kareenkii korka ku marinayaa haddii ilaahay idmo waxa soo saartay kan keega lagu sharaxo haddaa haysan saxana saari kartaa anoo xataa saxan iyo kor saareen soo sharaxay waa idiin soo gudbi doonaa haddii ilaahay insha Allah saxanka caadiga hayaayad waxa haystid kor saar adigu kor sharax marka geesaha waxaan ka geliyay baco bacahaas waxaan diidaa keega wasaq iyo foolxumo inay iga gaagaarto soo qurux badan oo nadiif inuu hadhowta iga soo baxaan rabaa marka bacahaas wasaqdaan rabaa inay iga wareejiyaan qaybtii labaada soo saaray qaybtii hoose ani kareemka mariyay qaybtii labaada soo saaray iyagana sidoo kale aan kareemka u marinayaa tartiibtaada u marso kadib geesaha mari marka waxaa ii diyaarsan oo haddana haddii ilaahay insha Allah geesaha iyo korba ugu shubi doonaa buskudka la dhahayo ooriyaha oo dhadhankiisa ilmuhu jecel yihiin oo macaan dadka weyn xataa way jecel yihiin buskudkaasaan soo qaadanaya oo ani soo shiitay haddaa midka lagu shiidana maaragtay oo heelka ku yaalo oo dhalada cabitaanka lagu soo gado
keega buskudka waa jarjare gacantaa ku yaryareysane waa ku guranaysaa waa ku shiidan kartaa laakiin wax yaryar laba xaba ugu shiidan kartaa haddii kan hilibka shiidahaysatid oo makiinada hilibka shiidda oo korontada ah haysatidna waxaa waay hal bukiska dhan oo buskudka hal maray ku shiidaysaa haddii labadaba aa haysanina intaa jarjartid oo bac ku gurtid ayaa kal ku garaacin kartaa haddii ilaahay insha Allah buduu kuu noqonayaa marka markasta wax aan suurtagal ahayn ma lahan marka ooriyaa geesaa uga soo firdhinaa korna waa uga soo shushubayaa haddii ilaahay idmo si fiican u kala gaarsiinaa wax badan ma soo shiidan hal bukis la soo shiiday awalow doolshaha hoos wuxuu ka ahaay keegeena awalow wuxuu ahaay maahanoo waxaan ka sameynay cow powder awalow maaro kalarkiisa madow ahaa marka waa iska yareynaa dhadhan macaan hoos ku leeyahay kana sharaxaad lee ka rabnaa marka hal xabo lee usoo jarjaray oo usoo shiiday marka bicihii waa ka bixinaynaa waqtigooda wuu dhamaaday inta budada waxaas iyo kareemka geesaha aan marinaayo lee wasaqdaasaa rabay inay iga celiyaan hadda sharaxaada caadiga bacdaan wax miiga haleynayso marka bacdiyaa soo qaatay waa iska dhigbo kalsooni adoo isku qabtidaa lagaa rabaa oo cabsanaynin inaad tartiib leh aa ku baashaashid haddaad darintid waxa waa samey kartaa bacahana meel kastaa ka heli kartaa haddaa haysanina qasab ma ahan kareemkaa marsanaysaa shukulaataa kor uga daadsan doontaa iyadoo fududoo qaabka sharaxaadda xataa ay fududahay waa soo gudbinaa haddii ilaahay insha Allah oo sharaxaad fudud qofka bibilowga ee la qabsan karo tan hadda isku daysid aaday u fududahay markii isla ooriyihii kareemkii aan marinayo oo bahalka buskudka ooriyada la dhahaayay asagiyaan soo qaatay laba xaba u kala xabadii laba u kala jabiyey markaasaa ku sharuuxoya geesahan ka geliyey haddii ilaahay muqtar kusoo saara maahano cadaanka iyo madowga isku soo baxeen waa u jeedin maahano marka waa kana saan noogu soo baxay doolshaheeni hayma fududahay wax iska fudud maahano howl oo kala tuur maahano oo dhib badnayn markii saan u sharaxa aragtid waxa isleedahay shaqo badanaa laga qabta laakiin markii la sharaxayo waa u jeedaa si fududa wax weyn ma qaadanin waqti badan xataa ma qaadanin marka haddana gudaha uga soo shushuba haddii ilaahay idmo hadhowta waxbaa hoos gudaha uga qora doonaa haddii ilaahay idmo sababaa u samaysan keegan marka sababtii maaragtay haddii ilaahay idmo hoos gudaha uga qoranayna insha Allah laakiin hadda waa kana insaanoo kusoo baxay gaali iska arag maahanoo kasoo tuurahay insha Allah haddii ilaahay ciyaalka loogu soo tuuro birthday dambaan ku dhahay magaalo lagama doonayo maahanoo guriga ku samaysan kartaa asxaabtayda waa mahadsantihiin